waxaad ku soo dhawaataan magaalada Laascaanood oo caawa hal cadowle nabadgelyadeeda kale ay sugan tahay cadow labaad oo laga baqaya aanu jirin halka cadow ay leedahay waa cadowga ka soo horjeeda qarannimada Soomaaliyeed waa ka habeen iyo maalin Laascaanood weerarka ku soo waa ka madaafiicda la dhacaya inta marka laga tago reer Laascaanood waa nabadgelyo haddii laydinku yidhi Laascaanood system kama jiro waa been dhammaan dowladdii baa shaqaynaysa ilaamihii dowladda booliskii baa shaqaynaya garsoorkii baa shaqaynaya degmadii baa shaqaynaysa guddigii 330 oo heerkii dowladda dhexe maadaama aan wali systemkii dhisan oo dagaal aan ku jirno noogu jiraa shaqaynaya ismadii dhaqanka oo booskii madaxweynaha noogu jiraa shaqaynaya waxaanu nahay dad isku tashaday taladoodana aan loo yeedhinayn intaa haddaa ka gudbo waxaa la yidhi habar waa kii gaaban ee la garto anigoo waqti badan idinka qaadayn mudanayaal iyo marwooyin caawa Laascaanood waxaa suran calankii Soomaaliyeed waxaa ku dhegsan sawirkii madaxweynaha Soomaaliyeed reer Laascaanood waxay qirsan yihiin ilaahay la hortagaan madaxweynahan xasan sheekh ahayn inaan ahayn oo aan naloo dhaxayn reer Laascaanood waxay qirsan yihiin calanka ay leeyihiin oo yahay calanka Soomaaliyeed waxaanu u baahannahay annagana waajib baa lagu leeyahay annaguna xuquuq baanu leenahay anigoo ku hadlaya afkii shacabka degmada Laascaanood iyo kiisasiiba iyadoo hadalka munaasabadiisa ay leeyihiin garaadada iyo ugaasyada iyo ismada dhaqanku oo ay yihiin systemka maanta loogu sareeya waxaan caddaynayaa inaanu ka mid nahay ummadda Soomaaliyeed in waxana loo dilayaa ay tahay Soomaali ka go'a oo aan xoog idinku yeesho waxaan idin caddaynayaa dad baa dagaalka Laascaanood aad ugu murma dagaalka Laascaanood uu urursan yahay laba nin baa is haysta مثلا هذا كسو قاضي تمع عدي مصبيحي أما مصبيحي البلدان أما قرادة مصبيحي لما كاسو حيسكو هايستان أنا قاكو يارانا يا صومالينا واتكاقو هايستا أنا قانا كحكومة يا نلقا قانا أنا قاكو معمولا يا ننو حولي هاي ورانوكو صومالي بانا هاي عالم كا صوماليات بانا لي هاي مدحوينا هاي قلوا حسن شيخ تلاوي إذن أنا قانا معمولا يا Soomaaliya loo garnaqa bal Soomaaliya loo garnaqa taasi wata waxaan hadalka ku soo ururinayaa dadka reer SSC cidna dhib kuma aha cidna colaad kuma wadaan cidna weerar kuma aha baanu dagaal ku jirnaa dagaalkaan ku jirnaa waxa weeye war aan ku yeesho iyo war ilaahay baa ilaahay uu Soomaali baa ahay madaxweynaha waa Xasan Sheekh calankayguna waa kii lixdankii intaasaanu isku dilaynaa waxaan fariintan caawa u soo jeedinayo gudoomiyaha aqalka sare iyo xildhibaanada labada gole ka socda ee Soomaaliyeed ee ilaahay hortii dadkan loogu dhaariyay ee dadkan matalaya ee calankan u dhaartay waxaanu fariinta aan caawa aanu idin faraynaa waxaa weeye reer SSC waxay u dhinteen waa calanka waxay rabaan waa calanka waxaanu rabnaa wixii aanu xaq u leenahay inaanu helno waalidka waxaa jira caasi waalid iyo cugdi waalid caasi waalidku waa ninka qofka waalidkii ku caasiya cugdi waalidkuna waa waalidka caruurtiisa dulmiya war annagu waxaan u dhigbaxaynaa waa Soomaalinimo dowladda Soomaaliya anigu waxba ma qariyo doorkii aanu lahay waanu tagaynaa waxaanu rabnaa xildhibaanow ragow gabdhow wixii dadka deegaankan xaq u lahaa inaanu helno baanu rabnaa taasaanu ilaa 1900 ilaa 1800 laa maanta aanu u dhimanaynay maantana taasaanu rabnaa reer Laascaanood iyo reer SSC haddii loola jiray ma midaysna saaka waa midaysannahay waanu wada soconnaa
ما قلقلت وقيتين منك يا أربعة باس من ذاك كيري يقرأ عنوياني ما قلقلت وقيتين منك يا أربعة صوقان وهي أو هيبتو يدبنا كل قدر موياني أو أن كنت قف قبضنين ما أنت سياسيينتي يا هالدوركي يا قبلي غير سياسي يا ديغانا وميسيهين داغاما وميسيهين لما كنا تطبع هذيك رقم إسرائيل ما توامد حلمان ما توامد غير سياسي waxaan hadalka ka mabaxaya xafladuna waa inoo furan tahay maantana annaga maalin weyn bay noo tahay tacabkayagii bay noo tahay maalintaanu u dhimanay bay noo tahay waxaanu rabnaa xaquuqdii aanu ku lahayn qaranka soomaaliyeed inaanu ka helno xafladuna waa inoo furan tahay insha allahu tacaala xaqaana guulaysanaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh